السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الولي محمد أبو بكر وماشي أتكبرتان برشاد كمبيوتركا سيدو كلام ملتي ميديا عشركاني waxaan ku qaadan doonaa sidee Windows 10 loogu soo dari karaa Hibernate. waxaa dhici karta dadka badankooda Windows 7 inay ku yaqaaneen balse waxaan ku hayaa good news kaasoo ah inaad ka dhaxli karto Windows 10. aanu gudubna dhinaca Windows-ka waa cashir aad u yar waxaan u maleynayaa Windows-ka dadka isticmaala haddii uu ahaan lahaa desktop iyo laptop labadaba waad ka heli kartaa. haddii aad isticmaalayso laptop waxaad samaysaa qaybta batteriga halkaana ayaad right click leedahay kadibna waxaad dooranaysaa power option markaad doorato automatically wuxuu ku keenayaa halkan. haddii aad isticmaalayso desktop wax weyn ma ahan. haddii aad isticmaalayso Windows waxaad garaacaysaa calaamadda window adigoo haya ayaad waxaad garaacaysaa Q markaad garaacdo waxaad arkaysaa quick search inuu ku soo baxayo kadibna waxaad ku qoraysaa power markaad ku qorto automatically qaybtan hoose waxaad ka raadinaysaa power and sleep setting kaligaad ku siinaysaa automatically wuxuu ku keenayaa qaybtan kadibna waxaad ka dooranaysaa adjustment. halkan markii aad joogto automatically waxaad arkaysaa booskii laptopka iyo booska desktopka inay isku meel yihiin. okay qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa marka juice garay waxa aad rabto inaad off ka dhigto iyo waxa aad rabto inaad on ka dhigto. kaliga ayaan ku siinaynaa markaan ku siino waxaad arkaysaa qaybta batteriga inuu ku soo baxayo. ugu horreyn qaybta batteriga ayaan rabaa inaan wax yar kaaga sii sharxo. aniga hadda wuxuu igu programsan yahay haddii korontada ay baxdo laptopkayga 1 daqiiqo hadaan shaqo ku haynin display-ga kaliya ayaa isdiminayo shaqada uu wadana waa uu isdhameystirayaa. haddii uu ugu jiro adapter ama laptopka chargerkiisa Soomaali saasi u taqaanaa laptopka chargerkiisa haddii uu ku jirana oo aanan computerka isticmaalin 1 saac gudahooda haddii aan muuska waxba aanan dhaqaajinin automatically waxaa isdiminaya kaliya qaybta ah shaashada laakiin waxa shaqeynayo background-yada wixii gadaal ka kacsan. haddii tusaale ahaan dadka editing ku shaqeeyo ama dadka shaqooyinka badan u dirsada marka ay rabaan inay shaqo u dirsadaan waxa arkaysaa computerkii shaqo u dirsaday daqiiqada kadib uu ka dameeyo asigoon amar ku siin. marka si aad u hesho halkan ayaa lagaaga baahan yahay inaad ka saxdo. okay back ayaan leenahay qaybtaas waxa inoo soo haray marka juice garay marka la lid gareynayo lid waxa la dhahaa laptopka marka la isku laabayo lid ayaa la dhahaa isku laabida. okay kan ayaan dooranaynaa marka kan waxaan ka dhex arkaynaa marka bunch staffyo badan. okay inta ayaan rabaa marka inaan ku sharxo. ugu horreyn cashirkii wuxuu ahaa Hibernate balse markaan gudaha u soo galno waxa arkaysaa in waxyaalo kale ay isfurfurayaan. marka anigana waxaan rabnaa inaan qaab ahaan aan ku fahamsiino. okay waxa inoo qoran marka qaybtan kore waxaad ku arkaysaa Joyce janjigaray settingska kaliga ayaa ku siinaysaa. markaad kali ku siiso waxa arkaysaa Hibernate-ka inuu enable inoo noqonayo. haddii aanan dooran hadda tusaale haddii aan back dhaho oo aan meesha hadda ku soo laabto waxa arkaysaa Hibernate-kaaga inuusan active ahayn oo disable yahay. marka saas darteed waxaad sameynaysaa marka janji setting ayaa kali ku siinaysaa isla markii waxa arkaysaa Hibernate-kaaga inuu banaanka imaanayo kadibna tigta ayaad saaraysaa Hibernate-kaaga okay inuu noqdo. okay hadda waxaan leeyahay marka save janji. okay si aan u ogaado marka start menu ayaan furayaa power-ka ayaan garaacaya waxa arkaysaa Hibernate inuu inta noogu soo biiro. okay haddii aan ku soo laabano meesha hadday oo aan Hibernate-kii aan ka qaadno fiiri haddii aan Hibernate-ka ka qaadno aan tagno qaybta power-ka kadibna aan tagno power waxa arkaysaa inuusan Hibernate absolutely ku jirin. si aad marka u enable garaysato waxa muhiim ah inaad halkan tagto kadibna aad tigta saarto. okay kan ayaa rabaa marka inaan ku sharxo. qaybtan maxay qabataa qaybtan wuxuu qabtaa wixii battery quseeya qaybtan wuxuu qabtaa wixii adapter quseeya. halkan waxa ku qoran marka power-ka laptopyada iyo PC-yada ama desktopyada waxay leeyihiin power meel laga damiyo meel laga daaro. okay haddii aan power ka riixo maxaa dhacaya computerka sleep ha qaato haddii power uu ku jirana sleep ha qaato absolutely aan amarku ma siiyo. inta waxaan dhahaa do nothing waxba ay qabanin marka power-ka uu ku jirana do nothing. waayo waxa dhici karta si accident ah inuu qof farta kaaga riixo ama inuu adiga farta ka everything possible. marka kortag haddii aad tahay inaad jeceshahay inuusan laptopkaaga ama computerkaaga ilaa adiga inaad dimiso maahine uusan qof kaa diminin. okay maxaa inoo xiga marka laptopyada ama desktopyada keyboardkiisa waxay leeyihiin
marka aad taabato in automatically computerkaaga sleep mode uu qaadanayo. Okay, asigana haddii aan sleep mode-ka ee fartiga iga dhacdo maxaan sameynaa? computerka markuu battery aan isticmaalayo ha jiifto waxa dhici karta markaad isticmaalayso desktopka ma arkaysid, laakiin markaad isticmaalayso laptop waad arkaysaa. marka desktopkan kaliya ayaa enable kuu soo noqonayo. haddii aad laptop isticmaalaysana both labadaba waad isku arkaysaa. Okay, kan waxaan sameynaynaa markaasna waxaan leenahay sidoo kale do nothing. marka waa choice garaysan kartaa qaabkaad adigu u jeceshahay. Okay, waxaa inoo soo haray marka sleepka. laptop markaan isku laabo maxaa dhacaya? computerka ma inuu sleep qaataa ma inuu shaqo ii qabtaa? aniga absolutely waxaan jeclahay haddii aan battery aan isticmaalayo inuu sleep gareeyo, haddii aan isticmaalayo powerna inuu qaato hibernate. saas darteeda marka waxaan u maleynaa everything inuu qof walba fahmi karo. marka cashirkan waxaan ku baranay sida ugu fudud ee aad computerkaaga Windows 10 aad ugu dari karto hibernate. ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay. waxaan kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka, sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalka, hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno. waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelya iyo cashirkeena xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.